diiwaanka hilin hayaan waa diiwaan lagu ururiyey maansooyinkii iyo heesihii abwaan cabdi maxamed amiin diiwaankan oo dhowaan lagu daabacay dalka swiden ayaa waxaa daabacay ururka isbahaysiga soomaaliyeed ee ka jira dalka swiden buugga diiwaan hilin hayaan waxa uu ka kooban yahay 296 bog ama safxadood waxaa ku diiwaan gashan oo ku qoran suugaantii abwaan cabdi maxamed amiin oo 4 marxaladood ama geedi socod loo qaybiyey kuwaasoo kale ah marxalad ka bilaabanaysa 1962 kuna eg ilaa 1969kii xilligii kacaanku curtay marxaladdaasi waxa ay ka sheekaynaysaa dareenka dadka Soomaalidu sida uu ahaa markaas xilligii dawladdii rayidka ay maamulka gacanta ku haysay dhibaatooyinkii doorashada ka dhashay iyo nolosha iyo xaaladduba sida ay ahayd marxaladda labaad waxa weeye 1969kii ilaa 1982 intaas oo abwaanku si aada uu kacaanka ula jaan qaaday heeso iyo suugaan kala gedisanna oo kacaanka uu ku ammaanayo ama marxaladda uga tarjamayo uu sameeyey marxaladda saddexaad waxa ay ka bilaabanaysaa 1982 ilaa 1991kii xilligaasi oo abwaanku uu jabhadihii mucaaridka ee markaa ka jiray dalka Itoobiya uu ku biiray maansooyinkii uu tiriyey ayaa iyaguna ku diiwaan gashan buugga hilin hayaan marxaladda afraad ee suugaanta buugga hilin hayaan uu ka warramayo waxaa weeye burburkii Soomaaliya marxaladdaasi oo ka bilaabata 1991kii ilaa 2006 wuxuuna uga warramayaa marxalad kasta abwaanku xaaladda Soomaaliya halka ay maraysay siyaasad ahaan iyo nololba